Ramadaan mubaarak, Ramadaan kariim, afur wanaagsan. Alxamdulillaah maanta waa maalintii afaraad ee soonka. Afurkeyga maanta ma badno, waxaan sameysanayaa keliya furuut ayaan jarjaranayaa. Weli ma dhacday in aad furuut keliya aad ku afurto. Ugu horeyn haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkeyga kusoo biiro ka mid noqo asxaabteyda oo subscribe noo saar. Magacaygu waa Raxmad Diamond. Haddii aad horey noola joogtane waa ku mahadsan tahay. Maanta waxaan sameynayaa oo ka kooban yahay furuutkeyga number 1 qare, number 2 liin macaan, sidoo kale cambe iyo moos. Sababta aan u doortayna waxa ay tahay waa furuutiska ugu nafaqada badan, uguna faa'iidada badan. Qaraha oo kale qofka markuu sooman yahay hadduu isticmaalo xilliga afurka, maadaama uu yahay furuut u badan biyo, energy fiican ayuu ka helayaa. Sidoo kalena fitamiino badan ayaa ku jiro. Mida labaad waxa aan doortay waa liin macaan. Liin macaanta hooyada xilliga ay uurka leedahay waxaa wanaagsan inay zaaid u isticmaasho. Liin macaanta keliya maaha liintan, sidoo kale liin balbeelmada ayaa la mid ah oo waxaa ku jiro iron aad u fara badan. Mooskana sidoo kale waxa uu ka mid yahay furuutiska qolofta leh oo qofka markuu isticmaalo calooshana u jilcinaysa, oo hooyada uurka leh caloosha u jilcinaysa. Sidoo kalena wuu ku badan yahay potassium-ka. Waa furuut run ahaantii simple ah oo meel kasta laga heli karo, haddana aad u faa'iido badan. Afurkeyga maanta intaas ayuu ka kooban yahay. Haddii aad tahay hooyo uur lehna inaad isku sameysato ayaan kugula talin lahaa oo aad ila tijaabiso adigana. Ugu horeyn qarihi ayaan soo jarjaray, kadibna liinta ayaan diyaarinayaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa hooyooyinka aan awlaad haysan inuu awlaad ku irsaaqo, awlaad barakeysan oo baariyaal ah inuu siiyo. Kuwa awlaad haystan uu Ilaahay u barakeeyo oo uu baari uga dhigo, uuna la koriyo ayaan Ilaahay uga baryayaa. Run ahaantii waxa ugu adag ee qofka uu sameeyo waa in uu soo saaro ubad dhinac kasta ka dhisan. Awlaad waa la soo wada saari karaa, laakiin cunug dhinac kasta ka wanaagsan inaad soo saarto waa waxa ugu adag. Waana hawl inta badan shaqadeeda ay leedahay ama mas'uuliyadeeda ay saaran tahay hooyada. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu awlaada baari nooga dhigo, Ilaahayna uu nala koriyo. Alxamdulillaah inta aan haysan uu Ilaahay ku irsaaqo. Anaga inta badan waxaan xooga saarnaa in dhallaankeena aan ka korino dhinaca muuqaalka, laakiin ilmaha waxaa la rabaa in maskaxda laga koriyo, in dhinac bulsho laga koriyo, in dhinac waxbarasho laga koriyo. Jaanib kasta ama dhinac kasta oo nolosha ah in aad ka koriso dhallaankaaga si biri ka maalin uu u noqdo qof naftiisana wax tara, bulshadana wax ku soo kordhiya. Ugu dambeyn sidan ayuu diyaar ku yahay. Waxa uu ka kooban yahay afartaad shay. Inta badan in aad xooga saarto in aad ku afurto furuut aad ay u wanaagsan tahay. Xitaa haddaadan heli karin inaad shurbad isticmaasho, haddaadan shurbad haysan ama aadan heli karin xilliga oo aysan diyaar ku ahayn in aad boorash ku afurto, waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.